dambigii ugu horeeyay ee Allah subhanahu wa ta'ala arshiga looga galo wuxuu ahaa xaasidnimo waxaana galay ibliis asagoo xasdaya karaamada Allah subhanahu wa ta'ala uu karaameeyay nabiyulaahi adam alayhi salatu wasalaam isla dambigii ugu horeeyay ee Allah subhanahu wa ta'ala looga gar arlada waxa galay qaabil asagoo xasdaya nimcada ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ku manaysto walaalkiisa Haabil qofka adoonka ah inuu ka magac weynaado inuu ka hanti bato inuu ka qurux badnaado inuu ka caafimaad fiicnaado wuxuu asaga awood u leeyahay maahan ee waxa way nimco ilaahi subhanahu wa ta'ala uu baxshay waxa ku ayaan dar ina isku daydid nimcada rabbi ina adoonkiisa ka xasdid adoo waxna ka qaadi karin xaasidnimo haday faa'iido leedahay waxa cibro kugu filan walaal qaabil iyo ibliis meesha ee dhigta xaasidnimo kugu filan waliga qof walaalka ha xasdin waxna ha ku xasdin walaal